anigu waxaan ahay afhayeenka kudladda baarlamaanka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaan rabaa inaan war saxaafadeed kooban halkan ka sheego bismillaah kudladda baarlamaanka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland submad ka da baarlamaanka koowaad dowlad goboleedka Jubbaland December 2019 taariikh 2019 ku socota dowladda federaalka Soomaaliya hay-adaheeda kala duwan beesha caalamka daneeyaasha arrimaha Soomaaliya iyo saxaafadda madax bannaan ujeedada war saxaafadeed ka soo baxay baarlamaanka sharciga ah ee dowlad goboleedka Jubbaland annagoo ah guddi ka wakiil ah baarlamaanka sharciga ah ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaan soo saarnay war saxaafadeedkan ku saabsan qodobada hoos ku xusan qodobka koowaad duudsi xuquuqdii baarlamaanka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland taas oo uu duudsiyay Axmed Madoobe oo diiday in uu siiyo 36 bilood muddo 36 bilood ah wax gunaha iyo wax mushaar ah kadib wax gunaha iyo wax mushaar ah asagoo oo ka hor istaagay in baarlamaanka lagu caawiyo dhaqaale ka imaan lahaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga ah sida hay-adda UNDP sida ku cad qaansheegadka golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubbaland lambar 2 2019 ee sanadkii 2015 2016 2017 2018 taariikhdiisuna ahayd 3 Juun 2019 qodobka labaad caddayn doorasho annagoo ah baarlamaanka sharciga ah ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaan caddaynaynaa in aysan doorasho xor iyo xalaal ah ka dhicin Jubbaland maadaama aan joognay Kismaayo wixii meesha ka dhacayna waxaan ku tilmaami karnaa isku caano shub qof asagu isdoortay qodobka saddexaad xadgudub iyo ku tagrifal awoodeed Axmed Maxamed Islaam oo ahaa madaxweynihii Jubbaland in uu ku tagrifalay awoodii in uu ku xadgudbay Jubbaland wuxuu ku xadgudbay awoodii Jubbaland uu hayay wuxuuna baalmaray dhammaan dastuurka federaalka Soomaaliya iyo kan Jubbaland asagoo markuu hadlayo sheegaya in dastuurkii aan lagu dhaqmin balse asagu uu jabiyay dhammaan qodobada dastuurka Jubbaland ee halkan ku cad sida qodobka 49aad qodobka 78aad qodobka 80aad qodobka 81aad qodobka 82aad qodobka 83aad qodobka 84aad qodobka 85aad qodobka 86aad qodobka 39aad qodobka 34aad qodobka 44aad qodobka 45aad qodobka 46aad qodobka 47aad qodobka 30aad qodobka 32aad qodobka 31aad qodobka 92aad 93aad qodobka 92aad oo ahaa in ay wada shaqeeyaan qodobka 111 ee dastuurka federaalka qodobka 25aad farqadiisa labaad ee xuquuqda doorashada kaasoo ahaa in aan loo ogolayn nin askari ah ama ciidamada ka tirsan inuu noqdo mudane la soo doortay taasoo cadaynaysa ragga hadda jira inay intooda badan ay ka tirsan yihiin ciidamada 4 macaluul iyo gaajo deegaankii aan ka nimid ee Jubbaland kaas oo maantayto dadku ay shafka dhulka ku hayaan ayagoo shafka dhulka ay ku hayaan gaajo awgeed kadib markii meel kasta ay ka xirantay canshuurtiina lagu kordhiyay oo dhammaan dukaamada iyo guryaha iyo bakhaarada iyo ganacsatada danyarta ah ee Kismaayo ku dhaqan ee la duldhigay dhaqaale aysan awoodin oo loogu magac daray canshuur sidoo kale dhibka
waxaa ka mid ah in guryaha lagala baxo albaabada kadib markii ay awoodi waayeen in ay keenaan lacagta la weydiiyey ee canshuurta lagu magacaabay aniga lafteeda li albaabka laga saaraya gurigaaga hadaadan bixinin lacagtaas ayada qodobka shanaad xurriyadda qowlka waxaan cadeynaynaa in dadka reer Jubbaland oo dhan aysan haysanin wax xurriyatul qowl ah sida ku cad qodobka dastuurka Jubbaland qodobka 20aad ee dastuurka Jubbaland xurriyadda ra'yiga iyo afkaarta dadka sidaas darteed waxaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka ee daneeya arrimaha Soomaaliya iyo cid kasta oo daneynaysa Jubbaland ka codsanaynaa in ay wax ka qabtaan arrimaha Jubbaland oo aad moodo in dawladda federaalka Soomaaliya ay ka gaabisay xaaladda maanta ka jirta ee Jubbaland aad iyo aad baad u mahadsantiin